kulan wacan oo wanaagsan qiyaari meel baad joogtaan halkan waa nuxurka wararkii ugu dambeeyay ayaan ku soo gudbinaya qodobada barnaamijkan aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu isgarab istaagay cabdicasiis maxamed xasan laftagareen madhabba in laftagareen waqtigan uu doonayay in awood maamul uu ku sii haysto koonfur galbeed Soomaaliya dowladda Soomaaliya waxa ay kordhisay isla markaana ay xoojisay xooga qarsoon ee ka howlgala magaalada Muqdisho si loo xaqiijiyo amniga caasimadda kale barnaamijka kugu soo gudbin doonaa isla markaana aad ku daawan doontaan waxa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay loo wareegtay kaalin muhiim ah oo muddo maqneed waxa ay ka dhex muuqanaysaa shirarka caalamka waxaan idin soo gudbin doonaa dhaqaalaha wadamada Carabta oo Soomaaliya loo gacan geliyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu Mareykanka kula kulmayaa dadyo kala duwan oo siyaasadda Soomaaliya aad u daneynaya kulamadiisa waxay noqdeen dhamaantood kuwa miro dhalay oo loo aayay qodobadaas ayaan isdul istaagi doonaa balse haddii aad nagu cusubta daawade waxaan kaa dalbanayaa in aad nagu soo biirto oo aad subscribe noo dhahdo bartan aad naga daawanayso ee nuxurka wararka muuqaalkan saaxiibada la sii wadaag qaybta hoose ee commentiga noogu reeb aragtida like-tu waa muhiim ee hilmaamin mar walba aynu ku bilowna madaxweynaha hore ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa u muuqda waqtigan in uu garab iyo gaashaan u noqonayo saaxiibkiisii hore cabdicasiis maxamed xasan laftagareen waxa uu waqtigan daneynayaa in uu sii joogo xukunka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya balse dowladda uu majaraha u hayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaan marnaba aqbali doonin in laftagareen halkaasi uu sii joogo kolka uu dhameysto xukunkiisa ama waqtigiisa muddo kordhin iyo in uu markaasi sameysto farsamooyin kale oo kursiga ku sii joogo ayaa waxay ka dhigan tahay in markaasi dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ka gaabiso sida uu qabo Dr. Mukhtaar Maxamed Cali oo falanqeeyay arrimaha siyaasadda iyo amniga maxamed cabdullaahi farmaajo oo hadda ku sugan wadanka Turkiga isaga iyo saaxiibkiis Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa waxa ay qorsheynayaan sida uu Dr. Mukhtaar Maxamed Cali sheegay in ay difaacaan oo ay gaashaan u noqdaan laftagareen marnaba gaashaan uma noqon karaan farmaajo iyo Fahad Yaasiin sababtoo ah waxay xaji waayeen oo ay meel saari waayeen kursigii ay hayeen iyaga oo taa ku fashilmay haatan banaanka iyaga oo jooga waxba ma qaban karaan oo laftagareen garab ma noqon karaan laakiin laftagareen waxa la gudboon in uu tanaasulo ama markaasi uu ka laabto fikirkiisa ah in kursiga uu mar kale sii raadiyo waan uga digayaa oo waan u sheegayaa dhowr jeer oo horena warbaahinta waan ka sheegay laftagareen waxa la gudboon in xilka uu wareejiyo goorta muddaxileedkiisa uu dhamaado ayuu yiri Dr. Mukhtaar Maxamed Cali oo warbaahintan nuxurka wararka la hadlay geesta kale cabdicasiis maxamed xasan laftagareen dhaqaaqyo xoogan ayuu bilaabayaa dowladda federaalka ah iyo diblomaasiyiinta shisheeye ee dalka ka howlgala ayaa madaxweyne koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen waxa ay ku cadaadinayaan inuu si dhab ah u taageero isla markaana uu qayb kaga noqdo dib u heshiisiinta uu sameynayo gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo gogol dhigay dib u heshiisiinada deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya tani ayaa waxaa ka dambeysay kadib markii ay xiisad siyaasadeed ka dhalatay muddo kordhinta baarlamaanka koonfur galbeed u sameeyay madaxweynaha oo muddaxileedkiisu uu ku egyahay 19 bishan inkastoo madaxweynuhu dabayaaqadii bishii November hore uu markaasi u taageeray baaqa gudoomiyaha golaha shacabka haddana waxa uu xilligan ka cagajiidaya in gogosha wada hadallada lagu qabto magaalada Baydhabo waxaana xilli gudoomiye Aadan Madoobe uu magaalada Xudur u joogo dadaalo uu ku heshiisinayo ama markaasi uu ku xoojinayo baaqiisii hore madaxweynaha ayaa talaadadii waxa uu madaxtooyada Baydhabo ku qaabilay safiirka Ingiriiska ee dalka Kate Foster ila wareedi ayaa sheegaya in uu sheegtay in madaxweynaha ay madaxtooyadu qabato shirkaasi oo aysan ka baaqan wararka ayaa intaa ku daraya in madaxweyne laftagareen loo sheegay in taageerada dowladda iyo midda beesha caalamkaba ay ku sii xoojin kareyso in uu meesha sii joogo balse haddii taas uu diido bedelkeeda uu la kulmayo colaad dhinacaas kaga imaanaya safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa dhankeeda laftagareen waxay ku wargelisay in uu maamulku joojiyo talaabada uu siyaasiyiin deegaanka uga hortagayo inay u safraan magaalada Baydhabo
lafta gareen ayaa waxaa lagu eedeynayaa ilaa iyo haatan dhanka kale in aanu qaadin wax tallaabo ah oo la xiriirta arrimaha al-shabaab lagula dagaalamayo. siyaasiyiin badan oo reer koonfur galbeed ah ayaa ku xandhiban caasimadda muqdisho kadib markii madaxtooyada koonfur galbeed ay shirkadaha diyaaradaha uga digtay inaanay siyaasiyiinta keeni karin baydhabo. tani ayaa lagu macneeyay mid uu maamulku kaga farcelinayo diidmada ay siyaasiyiintaasi ka muujiyeen muddo kordhinta xafiiska madaxweyne lafta gareen, isla markaana uu maamulku garowsan yahay inay xaadi ka abuuri karaan magaalada haddii ay dhacdo in la meermeeriyo qorshaha muddo kororsiga. si kastaba ha ahaatee dadka koonfur galbeed ayaa walaac ka muujinayo waxaa xigi doona haddii uu dhammaado waqtiga madaxweynaha wax doorasho ahna aan la qaban oo aan loo dareerin. lafta gareen dad badan waxa ay qabaan in marnaba aysan waqtiga suuragal dhankiisa ka ahayn in doorasho uu u dareero. waxa uuna mar waliba juhdi gelinayaa sidii ay halkaa kaga sii arrimi lahaayeen isaga iyo kooxdiisa, isaga oo garab weydiisanaya saaxiibadiisii hore iyo kuwa haatan dan siyaasi ah kale. dhanka kale haddii aynu eegnana khiyaarin wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa sii wada dadaalada ay tahay in lagu xaqiijiyo ammaanka magaalada muqdisho kadib weerarkii 27kii bishii November ay al-shabaab koox ka tirsan ku qaadeen hotel lagu magacaabo Villa Rice oo ku dhow xarunta madaxtooyada qaranka. wasaaradda ayaa toddobaadkii hore soo kordhisay qorshe lagu baarayo xildhibaanada baarlamaanka marka ay tagayaan xaruntooda Villa Hargeysa oo ku dhex taala aqalka Villa Soomaaliya. wasaaradda ayaa sidoo kale kordhisay tirada darcadka ee qaabka qarsoon uga howlgala xaafadaha 17 degmo ah ee magaalada muqdisho. tani waa qayb kamid ah tallaabada ay dowladda federaalka u qaaday sugidda amniga magaalada ka gadaal weerarkii Villa Rice oo dad badani aan la anfireen bacdama uu hotelkaasi ku yaalo xayndaabka aqalka dalka looga armiyo ah goob amnigeeda si weyn loo ilaaliyo. ila wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in taliska hay-adda NISA uu shaqaaleysiiyay in ka badan laab dharcadkii ku daadsanaa magaalada, welina uu talisku wado qorista shaqaale cusub oo la howlgeliyo. Villa Soomaaliya ayaa fahamsan in maleeshiyaadka al-shabaab ee dagaalada looga saaray gobolada dalka ay soo galayaan caasimadda muqdisho oo ay u arkaan goob ay gabaad ka dhigan karaan oo dadka deganna aysan is aqoon, isla markaana ay ka geysan karaan fal amniga ka baxsan. ciidamada dharcadka ayaa shaqadoodu tahay in ay laamaha amniga kusoo wargeliyaan cid kasta oo fal amni darro la xiriirto ay arkaan iyo dadka aan la garanayn ee xaafadaha magaalada kusoo kordha. waa dharcad ay tahay iyadoo aan guryaha la baarin inay soo ogaadaan wixii ku nool, waana xooga dahsoon ee aan ku ekaan oo kaliya goobahooda balse guurguura ama dhaqiiqda sameeya. hay-adda NISA ayaa waxaa la leeyahay waxa ay qorsheynaysaa inay dharcadka la wadaagto sawirada xubno al-shabaab oo hay-addu ay baadi goobayso si ay hay-adaha sirdoonka ula socodsiiyaan hadiiba goob ka mid ah magaalada ay ku arkaan. khubarada amniga ayaa sheegaya in shabaabku ay isku dayi doonaan fal kasta oo argudasho ah hadiiba ay ka cararaan gulufka ballaaran oo kaga furan gobolada dalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa bartamaha oo xaaladii ay ku qabsatay. markii horeysa gudoomiyaha gobolka Banaadir Madaare ayaa ka digay xubnaha shabaabka ah inay caasimadda kusoo firxadaan. weerarkii Villa Rice ayaa ugu dambeeyay 3 weeraro al-shabaab ka geystay magaalada muqdisho tan iyo markii uu xafiiska dib ugu laabtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waana weerarka ay madaxda qaranku ku baraarugeen halista dhabta ee kooxdan hubeysan ee dalka ka dagaalamaysa ayay dadka siyaasadda cudursahi leeyihiin. ugu dambeynna wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur ayaa magaalada Khartoum ee dalka Suudaan uga qayb galay shirka golaha dhaqaalaha wadamada Carabta ee sanadkan ay shir gudoomisay dowladda Suudaan. shirkan ayaa looga hadlay arrimaha horumarinta dhaqaalaha iyo xoojinta iskaashiga ka dhaxeeya hay-adda maaliyadda dalalka Carabta. wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur ayaa kulanka ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabaneysay oo ku saabsan marxaladda maanta ee Soomaaliya, sida dib u habeynta maaliyadda, dhamaystirka deyn cafinta iyo xiriirka xoojinta hay-adda dhaqaalaha Carabta. markii uu shirku soo dhamaaday ayaa dowladda federaalk ee Soomaaliya lagu wareejiyay shir gudoonka golaha oo gudoomiye looga dhigay wasiirka maaliyadda Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo xilkan hayn doono ilaa iyo dhamaadka sanadka 2023. daawade barnaamijkan ama wararkan
waxa uu kaga imaanaya barta aan ku leenahay YouTube-ka ee nuxurka wararka. haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo fadlan subscribe noo saar bartan aad naga daawanayso muuqaalkan sii share garee like-tu muhiim ayay noo tahay hilmaamin waxay kordhinaysaa daawadayaasheena adigana waxba ka dhibi mayso halkan waa nuxurka wararka amaana Allah.